بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة التكوير مكية وآياتها 29. عشر كانوا عاوحوا قبل لابن هياه. سورة مقعيدة ليرا سورة التكوير، مقع سورة التكوير بالليرا. إذا الشمس كورت أي ددكم معناها إن لو يقاننا ويسك سورة قل، لكن سورة كستاهي مقع بيلاده هيو كوير الداس وحوي تكويرك كوير الداس اللوغة جدا والضوبست وي والضوبست بقيامة ذي كهد ليسا سورة دها مكيقا أي كمتها سورة داني حقيقة قيامة إيا حقيقة وحيقا إيا رسالة لبدا سين كهد لدونتا سورة إن شاء الله. سورة التكوير مكية وآياتها 29. آياته واللباتن إيشان سورة دان وحي سورة كب اللابتا قيامة والعدايو إيو وحيابها كدل الدون انقلاب كالدنوغة oo qoraxdii iyo xidigihii iyo buuraha iyo badaha iyo dhulka iyo samada iyo xoolaha iyo kulli waxa la soo shiri doono ayay ka wada hadli doontaa. waxay kaloo ka hadli doontaa xaqiiqada waxyiga iyo sifadii nabigeena calayhi salaatu wasalaam iyo ayay iyadana ka hadli doontaa nabiga calayhi salaatu wasalaam. bismillaahir rahmaanir rahiim. idaa waqtigii ash-shamsu qoraxdii kuwirad la duuduubo wa idaa waqtigii an-nujuumu xidigaheena in ka darad ay soo daataan wa idaa waqtigii al-jibaalu buuriheena suyirad la socodsiiyo oo la rujiyo oo dhulka laga rujiyo ee dhulkii cirka inta u dhaxayda la socodsiiyo habaa'an manfuuran bal laga dhigaba wa idaa waqtigii al-cishaaru geela rimayga ama hasha 10 biloodka cudilad la baylahiyo oo ninkii lahay oo cidleeyo wa idaa waqtigii al-wuxuushu ee dugaagtii ama ugaartii ama duurjoogtii xushirad la soo kulmiyo oo la soo jamciyo lilqisaas wa idaa waqtigii al-bixaaru badihiina sujirad la kululeeyo wa idaa waqtigii an-nufuusu nafafyaalkiina suwijad la isla xiriiriyo oo naf walba jismigeeda lagu xiriiriyo wa idaa waqtigii al-maw'uudatu gabadhii la nolol xabaalayna su'ilad la su'aalo biayi dembikee ka ahoo qutilad loo dilay wa idaa waqtigii as-suxufu xaashiyihii ama waraaqihii acmaasha ay qof walba ku qoreed nushirad la fidiyo wa idaa waqtigii as-samaa'u samadii kushidad la diiro oo la rujiyo oo meeshay ku taalo dhan laga qaado wa idaa waqtigii al-jaxiimu naarta jaxiimo la yidhaahdo sucirad la kululeeyo wa idaa waqtigii al-jannatu jannadiina uslifad la soo dhoweeyo. intaasoo arrimoodu markay dhacaan ayay calimad ogaan doontaa nafsu naf walbaahi maa shaygii axdarad ay xaadiriday. falaa uqsimu fa uqsimu waxaan ku dhaaranayaa bilkhunnasi xidigaha qarsooma aljawaari oo xidigahaasu aljawaari soconaya xidigahaasu alkunnasi ee qarsoomoo godkooda ku qarsooma. wallayli habeenkii baan ku dhaartay idaa cascasa markii uu jeesto ama markii uu madoobaadana waa la yidhaahdaa. wa subxii baan ku dhaartay idaa tanafasa markii uu neefsado oo uu soo iftiimo subxii. intaas baan ku dhaartee innahu qur-aanku la qowlu rasuulin malag la soo diray hadal uu ku hadlayo oo ilaahay xaggiis ka keenay weeyaan. rasuulkaasoo kariimi wanaagsan waa jibriil. rasuulkaa la soo dirayo dii quwatin awood u saaxiiba cinda dilcarshi ilaaha carshiga iskale agtiisa awood ku leh oo ilaahay agtiisa malag casiis ku aweeyey. malagaasoo makiinin haddana macnaha darajo leh darajoole darajow leeyahay cinda dilcarshi buu darajo ku leeyahay. malagaasoo mudaacin la adeecay thamma halkaas oo samaawaadka lagu adeecay. malagaasoo amiinin la aaminay oo waxyiga ilaahay loo aaminay. wamaa saaxibukum saaxiibkiinu ma aha nabi muxameda looga jeeda calayhi salaatu wasalaam bimajnuunin mid waalan ma ahan ee adinkaa waalan qurayshay. walaqad xaqiiqanimee ra'aa
wou arkay nabigu calayhi salaatu wasalaam malakul jibriil bil ufuqi jihadiibuu ku arkay almubiin ee caddeed wamaa huwa nabi muxamed ma ahaanin calayhi salaatu wasalaam cala alghaybi haybka korkiisa bidaniinin mid ku bakiila ama bidanniinin mid lagu tuhmaysto isbagtar laga qaato maaha wamaa huwa qur-aankuna ma ahan biqowli shaydaanin shaydaan hadalkii ma aha shaydaankaasoo rajiimin naxariista ilaahay laga fogeeyo malcuun ah fa ayna xaggeebaa tadhabuuna aadaysaan in huwa maa huwa qur-aanku ma ahaanin ilaa dikrun dikri ilaahay oos yahay maahane wax kale ma ahaanin dikrigaasoo lilcaalamiin caalamkoo dhan loogu talagalay makhluuqoo dhan caalamiintoo dhan loogu talagalay liman buu dikri u yahay shaa'a doona oo minkum idinka mid ah an yastaqiima inuu toosnaado hagaago qofkii doonaya qur-aanku waa dikri ilaahay u soo dejiyey laakiin adugu inaad toosto ma dooni kartaa maya ilaahay inuu ku toosiye maahani wamaa tashaa'uuna adinku dooni maysaan inaad toostaan ma dooni kartaan ilaa an yashaa allaahu ilaahay inuu doono idinla doono maahani allahaasoo rabbulcaalamiin caalamka waxa ku nool oo dhan rabbi u ah bismi illaahi araxmaani araxiim idaa waqtigii ashamsu kuwirat idaa waqtigii ashamsu qorraxda kuwirad la duuduubo qorraxda dhan adduunka waa la duubayaa wa idaa waqtigii annujuumu xidigihii inkadarad ay daataan xidiguhuna way soo daadanayaan wa idaa waqtigii aljibaalu buurahana suyirad la socodsiiyo inta la rujiyo ayaga dhanba meeshii ku yaaliin ayay marayaan hawada iyo dhulka iyo cirka meel u dhaxayda ayagoo bidbidayay meelahaas marayaan wa idaa waqtigii alcishaaru hasha 10 biloodka ah geela oo rimayga ah cudilad la baylhiyo oo ninkii lahay waa waqtiga geela loogu jecel yahay ninkii lahay wuu ka tegayaa maxaa yeelay qiyaamadii hadda dhacaydo qof walba wuxuu taagan yahay yaa nafsi buu joogaa qiyaamadii dhacday waa laga tegaa marka hashi wa idaa waqtigii alwuxuushu ugaartii ama ugaartii bannaan joogga aheed cidla joogga aheed xushirad la soo shiriyo oo la soo kulmiyo oo la keeno oo mid walba midda kale looga qisaaso waxay ku samayday wa idaa waqtigii albixaaru badaha oo dhanna sujirad la kululeeyo inta la isku furo sidii xalaba aan soo qaadanay suuratul infidaar inta la isku furo oo kulligeed hal bad laga dhigo ayaa haddana biyo kulul laga dhigaa markaasaa naarta lagu dara ilaahay naga badbaadiyo markaas baa lagu cadaaba acdaad ilaahay lagu sii cadaaba wa idaa waqtigii albixaaru badihiina sujirad la huriyo oo waxa weeye la kululeeyo wa idaa waqtigii annufuusu nafafyaalkii naf walbaba suwijad la isku sawjeeyo sawje iyo zawj waa la isku xiriiriyey naf walba naf haddii lagu sawjeeyo waxaa looga jeedaa naftay la asaaga aheed oo ku hadafka aheed oo la saaxiib aheed oo ku ictiqaad aheed waa lagu xiriirinayaa qof walba qofkii oo macnaha qoladu ku xisbi ahaay xagga ictiqaadka iyo ficilka iyo qalbiga qaalaba qiyaamadana wuu la socdaa hadduu asxaabti rasuulka iyo nabigii iyo mu'miniinta oo jeclaay naftiisa qiyaamada waxaa lala xiriirinayaa dadkaas mu'miniinta meesha la geeyo liiskooda hadduu asagu qolada kala ahayna oo dadka xun oo ku xirnayna kuwa xun ayaa lagu xiriirinayaa wa idaa waqtigii almaw'uudatu gabadhii la nolol xabaalay oo iyadoo nool oo oynaysa qabriga lagu tuuray ee lagu aasay su'ilad la su'aalo biayi dambikii ka ahoo qutilad loo dilay sababtii loo dilay baa la su'aalaya maxaa lagu dila la leeyahay wa idaa waqtigii as-suxufu xaashiyihii acmaashu ku qoreed nushirad la fidiyo saa loo kala baxsho wa idaa waqtigii as-samaa'u samadiina kushidad la diiro samada dhama meesha laga diiraya ay ku taalo waa la fujinayaa waa la rujinayaa meeshay ku taalo dhama laga qaadayaaba waaba laga qaadaya ilaa adduunka dhama la duubayaa wa idaa waqtigii aljaxiimu naarta jaxiima la yidhaha allaha naga badbaadiyo sucirad la huriyo oo la kululeeyo wa idaa waqtigii aljannatu jannadana uslifat la soo dhoweeyo oo muttaqiinta loo soo dhoweeyo intaasu arrimood waa 12 shay ugu yaraan maalinka ay intaasu arrimood u dhacaan ayay calimad nafsun naf walba ogaan doontaa
ما أحضرت وحي حاضر ستي أو أي سميدي أو أما خيره أما شره أو الدنيا كو سميستي مالين كاسا قعنت لو قلي دونه أو لغو أما المريض دونه فلا أقسم فأقسم وحان كل عرنيا بالخنس بالنجوم الخنس بالخنس حدقها قرصومة أيا لوغة جيدة حدقها إفاية oo markii maalin la gaaro qarsoon xidigu maalinkii waa ma muuqdaan habeenkiina way ku muuqanayaan maalinkiina way qarsoomayaan xidigahaas qarsoomaya baan ku dhaaranayaaba ilaahay leeyahay bil khunnas xidigaha qarsooma macnaha maalintii ayaan ku dhaaranayaa al jawaari ee soconaya qoraxda iyo dayaxa ay la soconayaan saas iyaguna u socdo habeenkii waa artay inay socdaan al kunnasi xidigu wuu dhacaa sida qorraxda u dhacdo u dhacaa alkunnasi ee cilaya ama ku dhuumanaya ama u dunmaya ama meeshooda iyo godka loogu talagalay xaaqan haya sida bahashan eelada ay meesha godkay ku hoyato ay xaaqataa markaas bay gashaa alkunnasi ku qarsoomaya godkooda saasa ku Soomaaliye kartaa godka ayaga ay ku markay dhacaan inda alqurub godkooda ku qarsooma oo u dunno weeyaan walayli habeenkii baan ku dhaartay idaa cascasa markuu madoobaado oo habeenku waxa weeye habeenku markuu madoobaado mugdi noqdo oo yimaado habeenkii baan ku dhaartay idaa cascasa idaa aqbala bidhulamihi hatta qad alkawna looga jeeda wasubhi baan ku dhaartay idaa tanafasa markuu neefsado oo dadku soo qaabilo yimaado in labadaas baan ku dhaartay innahu quraanku ee xidigihii baan ku dhaartay iyo habeenkii iyo subaxii saddexdaas ilaahay ku dhaaranaya innahu quraanku la qawlu rasuulin malak la soo diray qawlkiisi weey waa loo adeefi nabiga qawlkiisina waa ila qawlullaahina waaye qawlullaahi way aslan jibriil baa ku soo hadlay ilaahay ka soo qaaday oo loox maxfuud ka soo qaaday nabi maxamed oo keenay nabiga ku soo hadlay kaleey salaatu wasalaam waa rasuulkaas ilaahay soo diray oo malaga ilaa malaa'ikta waxa loo soo diray jibriil rasuulka loo sii diray nabigana annagana loo soo diray marka malaga naftiisu waa rasuul moogta xagga ilaahay baa quraanka looga soo dhiib qawl weeye quraanku innahu la qawlu rasuulin malag la soo diray qawlkii weeye rasuulkaas kariim wanaagsan waa jibriil waa wanaagsan yahay rasuulku hadda waa wanaagsan yahay waa malag waxaan rabaa ee rasuulku waa malag waa wanaagsan yahay waa rasuul waxa looga jeedaa wixii la diraa la yiraahdo malaga waa la soo diray waa rasuul ilaahay oo soo dirsaday oo la yiri ugay anbiyada waxyiga loo soo dhiibay mala inuu u keeno macnaha waxa weeye rasuulka kaleey salaatu wasalaam rasuulkaas oo kariim wanaagsan oo waxa weeye aziis ku ah rabbi agtiis rasuulkaas oo dii quwwatin awood u saaxiiba jibriil malag aad u awood badan buu waa ogaa doona inda dil arshi allaha arshiga u saaxiibka ah oo arshiga milkiya agtiisu awood ku leeyahay ilaahay baa macnaha awooddeesii hadde rasuulkaas oo makiinin darajoole waa la yaqaan makaanadu makiin waxa la yiraahdaa darajada sideedaba marka waa malag ilaahay soo diray oo darajada weey shadiid alquwa weey saaxiibu makaanatin wa rafiicatin wa mansilatin saamiyatin baa looga jeedaa malagaas oo haddana ama rasuulkaas malagaaho mudaacin la adeeco thumma halkaas ayaa lagu adeeca samaawaadka oo dhan waa lagu adeeca ahlu samaawaadka oo dhan inay adeecaan baaba lagu amray malagaas ama rasuulka jibriiluhu amiin la aaminay ilaahay ba aaminay waxyiga loo soo dhiibay looxul maxfuud ka soo qaaday nabiga uu sii keenay kaleey salaatu wasalaam nabigana hadda laga hadlaya waa kan sifaadkiisu gaaladii baa dhaheen waa majnuun bay dhaheen waa waalan yahay dhaheen khayrka iyo wanaaga waday ku caynayaan ilaahay baa uga jawaabay wama saahibukum ma aha saaxiibkeenu waa nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam bimajnuun baalayr mid waalan maaha adinka waalan hadii waa la yujirdo laakiin nabi maxamed ma waalna kaleey salaatu wasalaam nabi maxamed waa majnuun leeyahay aduguna waxa sugay in lagu yiraahdo waad fiicantaad sugay nabi maxamedna kaleey salaatu wasalaam intuu koonka ku noolaay oo khayrka sheegay oo adduunyada uu joogay waxa laga daba lahaay inta aan khayr laawayaalkaay waa waalan ka daba lahaayeen walaqad raa wa arkay rasuulku kaleey salaatu wasalaam hu jibriil bil ufuqi
jihadii almubiini caddeed jihatulmashriq dhinaca bari oo waxa weeye mashriqa qorax soo baxa oo cad ayuu ka soo galay maka nabiga calayhi salaatu wasalaam markii uu waxyiga malaga la kulmaayey oo malagan suuradii ilaahay ku abuuray ku arkayay bil ufuqil mubiin buu ku arkay wamaa huwa nabigu ma ahan haddana calayhi salaatu wasalaam cala alghaybi ghaybka korkiisa kuma ahan ghaybka iyo waxyiga ilaahay u soo dhiibay bidaniinin mid bakhiil ku ah ma aha daad markii la akhriyo waa bakhiil kuma aha nabigu oo waxyiga ma kala qarinaayo waa rasuul risaalada loo soo dhiibay ammaano iyo sidqi ku dhiibaayo da'na waa la akhriyaa qirada abi xafsaho wamaa huwa cala alghaybi bidaniinin da'na waa la akhriyaa laba qiro weeye baadna waa la akhriyaa da'na waa la akhriyaa da'da markii la akhriyo waa tuhmo wamaa huwa nabigu ma ahaanin calayhi salaatu wasalaam cala alghaybi ghaybka korkiisa bidaniinin mid lagu tuhmaysto oo isbagto laga qaado ma aha nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam shakiba lagama qaadi karaba wamaa huwa qur-aanku ma ahaanin haddana qur-aanka uu nabigu noo sheegayo calayhi salaatu wasalaam biqowli shaydaanin shaydaan qowlkiis maahana la yidhi shaydaankaasoo rajiimin la dhagaxyeeyey la rajmiyey naxariista ilaahay laga fogeeyey macnaha meelay ka baxaanay waayeen qur-aankay caaya maageen waa looga jawaabay nabigay caaya maageen waa looga jawaabay marka meel walba iyo wax walbay sheegaan jawaab baa laga siiyey markii wax kasta meelay ka baxaan ay waayeen waxaa loo leeyahay fa ayna tadhabuuna xageed aadaysaan marka waayeen wax idiin haray male xujo ah xageed ka baxaysaan in huwa maa huwa qur-aanku ma ahaanin ilaa dikrun onbuu ahaaday waa dikri ilaahay buu ahaaday wax kale ma ahaanin ilaa dikrun onbuu ahaaday dikrigaasoo lilcaalamiin caalamiinta iyo makhluuq oo dhanba dikri ilaahay u soo dejiyey oo lagu waana qaato oo aakhirada lagu xusuusto oo qalbiga lagu qabowsado oo lagu caafimaado oo barako ah oo raxmo ah oo mid nool iyo mid dhintay intaba raxmad ku soo degayda ah ayuu qur-aanku ahaaday wax kale maahan buu ilahay leeyahy subxaana wa tacaala liman qof buu u yahay shaa'a doona oo minkum idinka mida an yastaqiima inuu hagaagsanaado oo tooso oo jidka toosan ou qaado oo shareecada wanaagsan ou maro oo jidka saalixiinta ou aado qofkii doonaaya qur-aanku wuxuu u yahay dikri iyo waano iyo shaygii lagu toosi lahay qur-aanka u abowleeya kuwii ku toosa ilaahay naga dhigo wamaa tashaa'uuna adinku ma doonaysaan khayrka inaad jidkiisa qaadaan ilaa an yashaa allahu ilaahay inuu doono maahani allahaasoo rabbulcaalamiin caalamka waxa ku nool oo dhan rabbi u ah ilaahay inuu kula doono oo isagu khayrka kuu qadaran maahane adugu iskama dooni kartid waa inuu ilaahay ku inshaa'iyaa oo ilaahay uu ku iraadeeyaa oo kula doona markaas ilaahay ku waafajiyo ka bacdi ayaad adugu samay kartaa laakiin ilaahayon kuu qadarin shayga ma samay kartid bismi illaahi araxmaani araxiim idaa waqtigii suuraddan oo la yidhaha suuratu takwiir iyo suuraddii xal aan soo qaadanno ahayd suuratu linfidaar iyo suuraddii aan hadda ka hor iyadana soo qaadanno ahayd suuratu linshiqaaq saddexdaas suuradood wuxuu yidhi nabigeennu calayhi salaatu wasalaam qofkii doonaya qiyaamada inuu si asagoo u jeeda camal ou qiyaamada u ogaado falyaqra' haadihi suwar athalaat saddexdaan suuradood oo qiyaamada ka hadlaaya si fiican ha u dhuuxo ha aqriyo ha ku tadabburo maxaa yeele kulligood qiyaamay ka warbixiyaan qiyaamadu waxay tahayna qur-aankaa laga ogaadaa qiyaamada qofka xusuusanna wuxuu la yimaadaa isticdaad iyo diyaargarow maxaa yeelay adduunka sidiisaba waxaa laga yahay safar ruuxa mar hadduu musaafir yahayna wuxuu qaataa sahaydii iyo waxyaabihii oo saadkii oo ku jid marin lahay ayuu qaadanayaa saadkii oo ku jid mari lahay oo ku mari lahay waxa weeye jidka aakhiro ayuu qaadanayaa marka sidaasaa loo baahan yahay qofku mar hadduu baxayo aakhiro aadayo zaad buu qaataa jiscin buu qaataa wuxuu aakhirada ku mari lahay iyo jidka wanaagsan ayuu waxa weeye qaadanayaa weeye nabiga marka calayhi salaatu wasalaam sidaasuu uga hadlay arrimahaasoo dhan salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi saddexdaan suuradood ha akhriyo qofkii doonaya inuu aakhirada ogaado oo aakhiradii ou arko ayuu nabigu leeyahay sala allahu calayhi wasalam
إلى وقت جيبوا إلهي سبحانه وتعالى الشمس قرحض كورت للضوضوبة أيويري قرحض والضوضوبة إياه وإذا وقت النجوم انكدرت حدقوهنا أي صوت داتان وصوت داتان حدقاء دامي وإذا وقت الجبال بورها سيرت لسعودسيه بورهنا وحوي والله كحينيا والله كحينيا والله روتشينيا انت لغا soo fujiyo ay meesha hawada dhulka u dhaxeeyay ku soconayaan hawadan dhexdeeda ku soconayaan wayda waqtigi al-ishaaru hashi 10 bilood ka ahayd hashi geela ramiga ah la yiraahdo ishaarka la yiraahdo oo waliba 10 ka bilood u dhamaadeen oo geelaydu ay aad u jecel yihiin wax raaci ah iyo qowsaara oo hadii la calla meesha qiyaamada hal rimay alla keeni lahay gabar xaamila la keeni lahay gabar murdica la keeni lahay murdicaadu ilmahay nuujinay hal maamilay xaamiladuna waxa weeye ayaduna sidoo kale taa ku dhici lahayd qiyaamada ay bajiri lahayd weeyaan mar walba ma aha haday bajiri lahayd bal alla ayaa laga hadlayaa la yiri oo yoomkaas yoomul qiyaamada ah hadii ma jiraanba laakiin hal oo cishaar ah haday yoomul qiyaama jiri lahayd waxa ku iman lahayd waxa weeye qofkii inuu halmaamo haday xaamila jiri lahayd inay ilmihii dajido haday murdica ilma nuujida jiri lahayd inay ilmihii halmaanto yoomka walwalkiisa iyo shidadiisa la suureynaya markaas oo kaleeto وإذا قرتي الوحوش وقرتي عدل شوكت أهات وقرتي عدل شوكت أهات حشرت مركي للسوق المياه بإلهير وحوي وقرتي معناها وحوي هذه كل جود ضغارتي يوردن وحن ربا وقرتي يوردن وبنايد اسكتشوجي ترين هذه لما أنتوا لا يسكسوا أوروريه هذه وقرتي يوردن بل لا يسكسوا أوروريه oo la soo kulmiyo maxaa loo soo kulminaya waa in la qisaaso oo meel walba jirta laga soo kulminaya waa la isku qisaasaya weeyaan waa la isku qisaasaya midba loo qisaasaya ugaartii hadii la soo kulmiyo oo la isku keeno maxaa yeelay rida garoon ahadiista nabigu waxay cadeysay kaleey salaatu wasalaam rida garoon in looga magahayo yoomka qiyaamo midda geesaha la jugtay ku dhifatay ayaa looga magahayaa nabigu leeyahay kaleey salaatu wasalaam wayda goorti al-bihar badihiina sujirat la kululeeyo inta la isku furo alla kululeynaya hal bad markii laga dhigo marka waxay noqonayaan dab ayaga dhamo ay noqonayaan wayda goorti an-nufusu nafafyaalkeena suwijat la isla xariiriyo sawjeynta waxa looga jeedaa naf walba naftay saaxiibka la ahayd ku hadafka ahayd la asaaga ahayd ayaa lagu xiriirinaya saalixiinta dadka saalixiinta baa lagu xiriirinaya dadka waxa weeye fanaaniinta kuwa fanaaniinta liiskooda lagu diraya ruuxi yahuuda ruuxa kale yahuudka lagu diraya ruuxi nasaartii baa lagu diraya ruuxi muslimiintii baa lagu diraya kii kale gaaladii baa lagu diraya kii faasiqiintii baa lagu diraya kii dhaaliba ama shaaribul khamri ah qoladu kamid ah qolo walbaba lagu soo jeynaya soo jeynta waxa looga jeedaa bimaana al-iqtiraan wada xariirin baa looga jeedaa maxaa yeelay zawjka iyo zawjada isqabaahi waa la isku xiriiriyay faajiriintii baa lagu xiriiriyaa saalixiin baa lagu xiriiriyaa sidaas oo ku fasiray imaamul mufassiriin oo imaamu dabari la yiraahdo sidaas ayuu ku fasiraya nafteena kuwa dadka khayr kale lagu xariisho Allah ka dhigo waxa kale lagu fasiray nafta markii lagu xiriiriyo nufuuftii markii la xiriiriyo nufuusta waxa kale lagu fasiray jismigi ay ka tirsaneeda lagu xirayana waa la yiri wayda goorti al-maw'udatu gabadhii la nolol xabaalay su'ilat la su'aalo gabadha nolosha lagu xabaalay waa jaahiliga markii gabdhahoodu ay dhashaan ayay waxa la yiri gabadha iyadoo nool ay aasi jireen baa la yiri ayadoo nool bay aasi jireen qaarna waxa weeye waxay sameey jireen baa la yiri qaar kamidahuna qaarna waxay sameey jireen hal gabdhahooda daayaa jira la yiri oo marasuuf oo waxba gel intuu xiraan ay ku raaciyaan baadiyaha geela iyo ay daba dhigaan oo hal mar nool fiican saysan u helin laakiin sida badan kulli waaba duugi jireenba ayadoo nool
qaarna markii hooyadu ay umusho ayaa hore looga tuuri jiray qaarna markii 6 bilo waxaan rabaa 6 sano ay gaarto baa inta loo libisaa la yiraahdo nakeen qabrigeeda marka la soo qodo godkii ay la korgeeyaa saa markii u fiiriso fiiri baa la yiraahdaa hore loogu hantuuliyaa sayiduna Umar aad buu uga murugoo jiray wuxuu yiri laba arrimood haday ugu soo dhacaan mid kamida waan ooyaa midna waan qoslaa buu yiri jaahiliga intaan ahayn waxaan hadda koor u baxnay buu yiri safar baan u baxaynay buu yiri waxaan weyno yiri ilaaha jidka aan ka waxaan ilaaha ka dhigano aan u baahanay buu yiri timir baan marka wadanay waxaan dhahnay timirteenan ilaah u niyeysanaynaba meel dhexe markaan marayno baahi baan qabatay buu yiri waxa la isku qabtay buu yiri timirtaan ma iska cunaa baahi baan hayde mase ilaah bay noo tahay waa dhaafanaa aan cunna baan dhahnay buu yiri mid kale hadana sameeysan doonaa way iska cunay buu yiri marka igu soo dhacdo timir aan ku cashaynayno inaan ilaahnimo u ictiqaadinay waan qoslaa buu yiri dabaalnimadii aan ku qoslaa buu yiri waxaan soo marnay jaahilnimadii iyo gaalnimadii arrin aan sameeyay hadda igu soo dhacdana waan murugoodaa buu yiri sayiduna Umar gabar anigu aan dhalay aan u wada buu yiri godkii aan ku doogalahay boorkii godka markaan qodaay isoo gaaray ay iga jafay garkayga buu yiri aniguna godka ayad aan ku qodi lahayn u wadaa buu yiri ayaduna waxay leedahay aaba inta boora kaaga yaala boorkii bay iga jafaysaa marka dhaqankaas xumaan ku noolayn ilaahay baa naga soo saaray nabi maxamed oo nicmo ah alayhi salaatu wasalaam oo rahmatan lil caalamiin ah oo hadiye ilaahay soo dhiibay ah oo kulligii barako iyo nuur ah oo magaciisa iyo muuqaalkiisa iyo meesha maro iyo salligiisa iyo sheegiisa iyo jacaylkiisa ay kulligii wada nuur yihiin nabiga alayhi salaatu wasalaam oo qiyaamada loogu baahan yahay qof walba hoos imaanaya rasuulka alayhi salaatu wasalaam nabi ka horeeyo shafaaco qaadaya male nabi walba markuu gacanta taago nabiga loo wada imaanayo way alayhi salaatu wasalaam wa khayru khalqillah wa sayyidul awwalin wal aakhirin ummadihi naga horeeyay iyo kuwa naga dambeeya sayyidaan u wada ahabo nabigu yiri xadiisiisa kamida alayhi salaatu wasalaam qofka beeniya xadiisiisa u beeniyay oo nabiga sayyid in la dhihi karo beeniya ama nabiga sayyid lama meel lagu yiri ma jirta yiraahda ahadiis wada saxiixa oo ku taala kutubaha sunanka ayuuba beeninayaaba cilmiga in la barta waajib muqaddas nagu ah maxay la waxa soo dhan ogaan bay u baahan yihiin marka nabiga alayhi salaatu wasalaam nabi maxamed baa noo soo diray bur waa ka baxnay jaahilnimadaas ilmahoodii ku aasi jireen nolosha ciladay u aasayaan waa laba mid kamid ah faqri way ka baqayeen baa la yiri waxay kale ilmahooda u aasi jireen oo ay nolosha ugu duugayeen waxay kale aheed baa la yiri waxa la yiraahdaa ceeb ay ka cabsanayeen waxay dhahayeen gabadha hadaad gabdho ay ku joogaan biilkoodii dharkoodii dahabkooda laga ma bixi karo waxay kale u aasayeen baa la yiri gabadhan nin aad cadow tihiin baa bari ka wadanaya ayada dhanba hal la duugo ay dhihi jireen haba la aasaba qabri hal lagu aas godba la iska geliyaa gabara ku dhalatay jaahiliga markii la yiraahdo murugta oo qabo ciidu isku aasi jiray asagaaba naxdin meel ku dhuumanaya la yiri wa ida bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wuxuu u dhawaanayay midkii kamida markii gabar loogu bishaareeyo wajigiisa wuxuu ahaanayo ilaahay yiri madow oo noqonay wajiga dhama madoobaanaya waa caraysnaana asaga dhamo dhalla wajhuhu muswaddan markaas wuxuu u dhawaanayaa cara intuu ka qabo oo cabursan yahay inuu ciidda isku duugo naxdin intuu ka qabo gabarba maxaa la igu sheegay oo leeyahay dhaqankii waxaad u malaysaa meel inay dad ay ku hartay oo gabdhihii nacbo ay jiraan gabdhaha waa meesha raggu ka yimaado ayagu ka yimaada la'aantood raggu xataa ma samaysmeen ayaguna ragay ka yimaadeen الرجال من النساء والنساء من الرجال والنساء شقاق الرجال baa la yiraahdaa inta ninku oo u baahan yahay ama oo yahay ta diinta isku sibaa looga rabaa cilmiga inay isku sibaa looga rabaa qof walba waajib ilaahay baa saaran wa adooma ilaahay ayaga looma abuurin inay guriga iska joogaan kale oo meel iska jiiftaan cilmiga inay bartaan ummadda ay sii baraan oo ay fahmaan oo ku cibaadaystaan waa laga rabaa naftooda waajibaadka saaran buu kamid yahay بأي ذنب قتلت ayaa la su'aalaya بأي ذنب ذنبكي ka oo qutilat loo dilay gabadha nolosha lagu doogay wayna ka jawaabi doontaa wa ida waqtiga as-suhuf nushirat la fidiyo qof walba kitaabkiisi iyo acmaashu sameeya horta laga soo dhigaya
اقرأ كتابك اللقولية كفى بنفسك اليوم عليك حصيبا مركز إليه المجرمين ما لهذا الكتاب لا يقادر صغيرة ولا كبيرة وحو كتغاية مالي وحو البواكو قريه خرطة لغا صودقية وإذا وقتي السماء خشدت سمدي مركي لسوليه oo la diiro oo la rujiyo meeshii ku taalo dhanba laga qaado samada dhama la duubaya wayda waqtiga al jahiim su'irat naarti jahiim la kululeeyo allah naga badbaadiyo wayda waqtiga al jannatu uslifat jannadii la soo dhaweeyo oo mu'miniinta mutaqiinta loo soo dhaweeyo maalinka intaas oo arimood ay dhacaan soo qiyaamadii ma ahan ayay caleemad nafsun ogaanaysa naf walbaahi ma ahbarat waxay xaadirsatay oo la timid oo hormariday oo dambi ah ama khayra maalinkaas qof walba oo ogaanaya annaasu niyaam fa ila maatu intabahu ayaa la yiraahdaa dadku hadda way hurdayaan qaflay ku jiraan laakiin maaliman la hurdayn oo qof walba uu san qoslayn ayaa ka dambeeya waa yawmul hisaab waxa weeye waa yawmut talaaqi waa yawmut tanaadi waa yawmul hasra waa yawmun nadama waa yawmul haqa waa yawmul qiyamah ويوم قارعة ويوم الفزع الأكبر مالكاس waxaad u diyaarsatay oo caaw aad waxa way ku xisaabtamaydo inaad ku badbaadayso waa inaad maanka iyo maskaxda ku qabataa fala uqsimu ayuu yiri ilaahay subhanahu wa ta'ala fa uqsimu waxaan ku dhaaranayaa laadu waasiru ama saa'ido bil khunnas xidigaha qarsooma qoraxdu markay maalinkii soo baxdo xidigaha dhuumanaya al jawaari soconaya hadana habeenkii way soconayaan الكنسي دعه او godkooda ku dhuunto godkooda ku cela wallayl habeenkii baan ku dhaartay ida cascasa markuu madoobaado wasubhi subhi baan ku dhaartay ida tanafasa markuu neefsado oo soo iftiimo intaas baan ku dhaartay innahu quraanku la qawlu rasuulin malak ilaahay soo diray qowlkiisi weey rasuulkaas oo kariimi wanaagsan waa malaga la soo diray laga hadlaya hadda rasuulkaas oo dii quwwatin awood u saaxiiba عند ذي العرش إله عرشك الصاحبك أو عرشك ملكية أكتيسو ملكان أود كلية إلهي باب أود ديسة سيي أو ملك أود بدن كتل مامي ملكاس رسولك أوه لصود ريو أنبياء الله قد معلنكو مكين ذي مكانة بدورنسة درجو لأ مكانو يدرجو أيو ليه إلهي أكتيسو كلية ملكاس مضاعن لأدعي ثم هلكاس واسم إشارة أو للمكان ثم مدهيسيد وثم قرآن كلاهي ثم هلكا لغو أبداعي أو ملائكته لما السماوات كو أبداعان حيالي أهل السماوات كو حالغو واتبيالي إنه جبريل أبداعان لولك واحد شوغانا وحالغو واتبيالي إيه مخلوق ونبا إنه النبي محمد أبداعان عليه الصلاة والسلام مركا أهل السماوات كو الملقان ويكدن بايان أبيك النبي النبي عليه الصلاة والسلام صنوال بمركو ساوسو قرعه oo ira jibriil baanahay waa laga furay albaabka waa sama marka malag la adeecay waana dii quwatino awoodisa waxa kamida sida hadda ka hor baan soo qaadanay qowm thamud oo kale 5,000 oo qoys oo hal mar ku qayli qaylada jibriil kulligood nafti uga wada baxday hal mar ku qayli taas kamida awoodooda 5 magaalo oo ummadda degan aan la xisaabi karin qowm luut baashiisa saasuu dhulka inta hoos uga geliyay ay samada markay ku dhow yihiin oo saa u soo rog ayagii dhamayba 600 oo baalood buu leeyahay malagaan jibriil la yiraahdo 600 oo baal kamida kaliya haduu fidiyaa la yiri qoraxdu meeshay u dhacdo iyo meeshay ka soo baxdo waa ka weynta malaa'ikta marag lamida lama arko samaawaadka waxa leeyahay markuu ka soo tagaa leeyahay jibriil markuu saa uga soo dego dhulka oo yimaado oo samada oo ku laabto isha intaan la isku qaban isku mari kara adduunyada dhan baa la yiri isha intaan saa la isku qaban kale ah oo mari kara saasa kutubaha ku qoran wa ilaahi jundigiis hal malak kaliya adduunka dhamo kibraaye malaa'ikta ilaahi hal malak oo kamida kale ah haduu ilaahi u amro kuma ay xoog dhama waa qudrada ilaahi iyo adoomada ilaahi abuurtay oo caasinayn oo adduunyada u jooga weeyaan oo macnaha makhluuq adduunka ugu dhaxnool ولا آمني ولا أبداعي ثم هالكاس باللغو أبداعي رسولك ملقاه أمين لآمني هدنا قول كيلو سوديبي جبريل ويقرانكم
وما صاحبكم صاحبكينو ما أهن قريش تادهن نبي عليه الصلاة والسلام وواليه يدهن ما وحالي صاحبكين التقانين ورنتيس شرفتيس عقلقيس أكتهين واد بأكتهين وسيليليدين ما والله ليه وأكتر سوى الله نبي عليه الصلاة والسلام جبريل مركو إيمانايو صورة من اللي يراد دحية بن خليفة اسكسو يالي لكن لبمر أيال ليه أو صورة إلهي كو أبوري كو أرك نبي عليه الصلاة والسلام مثلا قارو حرا بورتا مركي كوباب أو وحي اللقوب بالله بي أو أقو يمت دور مالمودا وحي كتشوك سدي sidoo nabigu calayhi salaatu wasalaam aad buu ugu hiloobay asagoo maalin socda oo arkay kursi weyn wax ku fadhiyo oo samadii dhulka u dhaxeeya oo malagii naftiisa la tusay baa leeyahay maalin waa arkay dhinacaas oo ka soo qaabilay markii uu arkay dhinaca arkida oo ka soo qaabishana dhinaca waxay ahayd mashriqa markii la joogo waxa way mashriqa dhinaca waxa way dhinaca mashriqa qorax soo baxa oo waxa way bariga مكة أو كأركي بالين ملقا ولقد رآه وكنا نبي وو أركي جبريل بالأفق دنعي المبين عضاي دنع عن شك وجر أركي ديدا أو دنع قرح بكسر بحضاء الله قط صيب عليه أصدق الصورة دي إلهي كو أبورا أو لح بقول أو بالود له أو باله سكقري قرح بماشي كسر بحضاء ماشي كل عضه وما هو هذا النبي ما أهان عليه الصلاة والسلام على الغيب غيبك يوحيك اللو سودي بكركيسة بضنين متكوء بخيل او قلق قوني انا وحيك ادي بايه قلنا كقرنايه نبي انه ما هين عليه الصلاة والسلام ضعنا والله اخياه وما هو النبي ما هين على الغيب غيبك دوشيسة بضنين مت لغته ميستو او لغو اسبكتيستو او شكل لغا قبي كرابة نبي محمد معه صلى الله عليه وسلم وما هو قرآنكنا ما أهان قرآنك بقول شيطان هذا الكسماها قرآنك وهذا الكإلهي وهذا الكجبريل أو كهض لي وهذا الكنبي محمد أو كهض لي وكلام الله أولا وأنا كلام كي لسد بين النبي محمد جبريلنا أو كسو قاضي ما أها شيطان قول كيسالي شيطان كاسو رجيم للرجميي أو نحريست إلهي لغا عرديي وملعون هذا الكيماها قرآنكم قال دي قرآنك يدعايدين نبي يدهن هو مجنون نبي يدهن هو كاهن عليه الصلاة والسلام قرآنك يدهن هو شعر نبي يدهن هو شاعر مرنا وحي يدهن هو على الوسات وحوال بيس كضيان ولو قوة الجوابي وحي الشاك ماقين ردن إله قوة الجوابي إلهي با نبي عليه الصلاة والسلام عيب كالسليم إنو يهي oo quraanku waxa weeye oo san wax ceeb lahayn wax walba loo sheegay marka meel ay ka baxaan ma haystaan waxa loo yiri fa ayna tadhabuna xageed aadaysan marka waayihi wax xujaa ma haysatiin xageed ka baxayda jidka toosani waa midkaas ruuxii jidka toosan oo waadixa ka taga waxa loo yiraahdaa waayihi jidkii toosnay waa diiday diintii waa sidaan xaqi waa sidaan xageed aadayso lama yiraahdo gaaladii waxa loo leeyahay quraankii waa sidaas nabigeena waa sida عليه الصلاة والسلام jidka toosanuna waa ka xageed aadaysan xujana uma haysatan meelad ka baxdaani in huwa ma huwa quraanku ma ahaanin illa dhikrun ilaahi dhikrigiisa ma ahana wax kala ma aha waa dhikrullah lil aalamiina aalamkoo dhan oo uu yahay dhikri quraanku aalamkoo dhan oo uu yahay adinkuna ma dooni kartaan inaad toosnaataan inuu ilaahi idin doono ma ahani أبو جهل يريبا ليري أنو هدان ربوا توسكر هدان ربنا وقلوا عكرة لمن بو ذكر أيه شاء الضوانة أو منكم إن كمل أن يستقيم إلو توصه أو جدك في عنقاضه قرآن كهانون قفك إلهي وافتي إلهي نوافتي هذا وحوي أذيك ميا وناق الدوني كرامك هذا إلهي كل الدوني أذيك ما يسهنوني كرامي وما تشاءون أذيك وناق من الدوني كرتان إلا أن يشاء الله إلهي إنو الضوانة ما هني إله سو رب العالمين عالم كوردن أصغر ربي واه إلهي كو خيرك الله دونه إلهي نقدقه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضاه والله تعالى نسأل أن يسدد خطايانا ويجزل لنا الثواب يوم المآب ويجعل جمعنا جمعا مرحوما
وتفرقنا تفرقا سالما، والله ولي التوفيق. عشر كان عاوة انت سنكسو كوبينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.